السلام عليكم داوديال كسو dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland D iyo dawladda isu tagay Imaaradka Carabta oo sababay in qayb ahaan la joojiyo shaqadii shirkadda DB ee maamushada ka magaalada Boosaaso waxyaabaha uu salka ku haya khilaafkaasi wararkeena ayaad ku daawan doontaan maamulka Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dalbaday in amniga guud ee deegaanada Puntland lagu wareejiyo ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM taliyihii hore ee qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Saadaq John iyo madaxweynaha Galmudug Qoorqoor oo heshiis culus ku gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isbahaysigii xisbiyada mucaaradka Somaliland ee u cidiyo wadani oo burburay iyo kulamo arrinkaasi looga hadlayo oo ka dhacay magaalada Hargeysa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo shaaciyay sababta rasmiga ah ee loo cayriyay macallinkii xulka qaranka Soomaaliyeed qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garooba ayagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena idin kugu sheegayba madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo dawladda isu tagay Imaaradka Carabta ayaa waxa soo kala dhex galay khilaaf xoogan waxaana uu khilaafkaasi sababay in qayb ahaan la joojiyo shaqadii ay shirkadda DB ka haysay dekedda magaalada xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in la joojiyay lacagihii shirkadda BNO ay ka qaadi jirtay dekedda magaalada Boosaaso shirkadaasi oo qayb ka ah shirkadda DB ee laga leeyahay dalka isu tagay Imaaradka Carabta ee maamushada dekedda magaalada xeebeedka Boosaaso hadalkan ayuu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ka dhawaajiyay saacado kadib markii uu soo baxay guux dadweyne oo la xiriiray in baarlamaanka Puntland ay diyaarinayaan mooshin ka dhana shirkadda DB oo la doonayay in gabi ahaanba laga qaado maamulka dekedda magaalada xeebeedka Boosaaso oo lagu soo celiyo gacanta dowlad goboleedka Puntland shacabka gobolka Bari ayaa si weyn uga cawday shirkadaasi waxaase in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu joojiyo qayb ahaan shaqadii shirkadda DB ee dekedda magaalada Boosaaso ay ku soo aaday iyada oo uu jiro tuun iyo madmadow soo kala dhex galay dawladda isu tagay Imaaradka Carabta iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Dani khilaafka oo dhowr arrimood salka ku haya ayaa la sheegay in aanu markaan la xiriirin arrimo ganacsi oo madaxweyne Dani uu ku qanacsan yahay in DB ay si maamusho dekedda magaalada Boosaaso balse uu ka carooday in dawladda Imaaradka Carabta ay ka cagajiido in ay maalgeliso ololihiisa musharaxnimada ee uu ku doonayo inuu ku hanto kursiga ugu sareeya Soomaaliya ee madaxweynaha hogaamiyaha Puntland ayay sharci yaqaanadiisa gaarka kula taliyeen in isaga oo haya xilka jagada ugu sareysa Puntland uu isku sharaxi karo madaxweynaha Soomaaliya kana qayb gali karo doorashada sanadkan la filayo inay ka dhacdo Muqdisho wuxuu doonayaa Siciid Dani hadii uu ku guul dareysto xilka madaxtinimada Soomaaliya inuu dib ugu soo laabto Puntland oo madaxweyne ka sii ahaado balse hadii uu ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya uu isaga tago kursiga madaxweynaha Puntland dhowr safar oo isdaba jooga oo la xiriira ololahaasna uu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani u magaalada Dubai ayay ka wada hadleen madax uu kamid yahay amiirka guud ee dalka isu taga Imaaradka Carabta sidii ay dawladda isu taga Imaaradka Carabta u maalgelin lahayd ololihiisa musharaxnimada Imaaradku wuxuu kolkii hore ogolaaday in uu maalgeliyo Siciid Dani si uu ugu tartamo kursiga Soomaaliya ugu sareeya ee madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu la yimid waxyaabo ay macquul tahay inuu ku guuleysto Siciid Dani wuxuu u sheegay Imaaradka in uu haysto taageerada xubno gaaraya 100 xildhibaan oo ka soo kala baxaya deegaanada Puntland iyo Jubaland wuxuu Siciid Dani sheegay in xubnaha baarlamaanka ee laga soo kala dooranaya labadaasi dawlad goboleed uu isagu gacanta ku hayo una codayn doonaan isaga oo sheegay in uusan jirin musharax kale oo miisaan leh oo haysto codadka in ku dhow 100 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya dawladda Imaaradka ayaa ballan qaaday inay bixinayso dhaqaalaha ku baxaya ololihiisa musharaxnimada iyo hadii uu u baahdo in codad loo iibiyo waxayse dib u guratay dawladda Imaaradku markii uu safarkaasi ka dambeeyay ku tagay isla Imaaradka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed maalmo kadib markii uu Sheekh Shariif ka soo laabtay safarka uu Dubai ku tagay waxa ay dawladda Imaaradku soo dhiibtay gaadiidka aan xabadu karin oo looga dajiyay dekedda Boosaaso
boosaaso lagana sii qaaday oo la geeyay muqdisho wuxuu imaaraadku si rasmi ah ugu qancay inuu sanadkan maalgeliyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya si uu u hanto kursiga Soomaaliya ugu sareeya ee madaxtinimada iyada oo mas'uuliyiinta imaaraadku ay ka dalbadeen Siciidani inuu u tanaasulo sheekh shariif oo sanadkan dhiso isagana la siin doono kursiga ra'iisul wasaaraha haddii uu u baahan yahay iyo haddii uu shakhsi kale la rababa wixii inta ka dambeeyay Siciidani ayaan la dhacsanayn qaabka uu imaaraadku ula dhaqmay isaga oo qaaday talaabooyin uu uga goleeyahay inuu uga caraysiyo dawladda isutaga Imaaradka Carabta oo ay ugu dambeysay joojinta qayb ahaan shaqadii ay shirkadda DB World ka haysay dekada magaalada xebeedka Boosaaso baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale wada mooshin gabi ahaanba shirkadaasi meesha looga saarayo oo la rajeynayo inta uu furan yahay kala fadhiga 48aad ee baarlamaanka Puntland in la horkeeno xubnaha golaha wakiilada si ay uga doodaan lama oga halka uu saldhigan doono khilaafka Siciidani iyo dawladda isutaga Imaaradka Carabta dawlad goboleedka Jubbaland ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe ayaa ka shaqeynaya sidii amniga guud ee deegaanada Jubbaland ay ula wareegi lahaayeen ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose oo uu ku yaalo saldhigga labaad ee AMISOM ayna ka howlgalaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa kormeeray mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland oo amaanay shaqada ay ciidanka Kenya ka hayaan Soomaaliya siiba gobolada Jubbooyinka iyo Gado toddobaadkii hore ayaa sektarka Dobley loo magacaabay taliye cusub oo dhalashadiisu tahay dalka Itoobiya hase yeeshee waxa durbo diidmo kala hor yimid dawlad goboleedka Jubbaland oo u arkayay in dana badan oo kala dhaxeeya ciidanka Kenya ee Dobley jooga ay meesha ka bixi doonaan haddii taliye Itoobiyaan uu maamulo ciidamada halka ku sugan inkastoo aanay AMISOM saacad uga hadlin arintaasi haddana waxa gaaray magaalada Dobley wafdi ka socda dawlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika kuwa oo ka wada hadlay diidmada ay Jubbaland kala hortimid taliyaha loo magacaabay ciidanka AMISOM ee ku sugan Dobley wasiirka amniga Jubbaland General Duumaal oo dhinaca Jubbaland isagu matalayay ayaa sheegay in sinaba aanay suurtagal u ahayn in Dobley la keeno taliye aan Kenyaan ahayn maadaama uu sheegay in magaalada Dobley ay ku taalo xuduudka Soomaaliya iyo Kenya kulankaasi Dobley ku dhexmaray dhinacyada ayaan wax natiijo ah ka soo bixin waxaana wafdigii ka socday AMISOM ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii ay ku guuldareysteen in mas'uuliyiinta Jubbaland ee ugu horeeyo wasiirka amniga General Duumaal ay ku qanciyaan in ay aqbalaan taliyaha Itoobiyaanka ah ee loo magacaabay ciidamada AMISOM ee ku sugan Dobley ciidanka daraawiishta Jubbaland ee ku sugan Dobley waxaa mushaarka si AMISOM gaar ahaan kuwa Kenyaanka ee halkaasi jooga dadka arrimahan u dhuundaloola waxa ay ku macneeyeen in haddii qof aan Kenyaan ahayn loo soo magacaabo sektarka Dobley ay ugu yaraan fashilmayso arinta mushaarsiinta ciidanka Jubbaland oo aanay AMISOM si guud uga warhaynin isla markaana ay tahay is-afgarad dhexmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo dawladda dalka Kenya Jubbaland ayaa horay u diiday taliye ay dawladda federaalku u magacawday ciidamadeeda ku sugan deegaanada maamulka Jubbaland waxaana jira in sanadkii hore ay diiday in taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawaay Yuusuf Raage uu tago magaalada Kismaayo kana dega garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo waxaana xilligaasi madaarka lagu gooyay dhagxaan iyo baabuur fara badan si aanu taliyuhu uga soo degin waxay Jubbaland doonaysaa in ay maamusho lahaatana awoodda ugu sareeya ee ciidamada howlgallada ka wada deegaanadeeda waxay sidoo kale Jubbaland isku dayaysaa inay magacawdo taliyaha ciidanka danab ee deegaanada Jubbaland arintaasi oo dhawaan ay diiday dawladda Mareykanka Jubbaland ayaa si toos ah u dalbatay iminka in ciidamada AMISOM qaybtooda ku sugan deegaanada Jubbaland ay iyadu awood ku lahaato oo lagu wareejiyo amniga deegaanada Jubbaland ciidanka Kenya ujeedada ay Axmed Madoobe iyo saaxiibadiisa kale ee kala tirsan dawlad goboleedka Jubbaland ka leeyihiin in ciidamada Kenya oo kaliya ay ka howlgalaan gobolada Jubbooyinka iyo Gado ayaa ah in aanay dawladda federaalka Soomaaliya oo ay hayaan aanay wax saameyn ku yeelan arrimaha deegaanada Jubbaland oo xilligan ay doorashooyin ku soo foolleeyeen waxa sidoo kale uu Axmed Madoobe dareensan yahay in taliyaha Itoobiyaanka ee loo magacaabay ciidanka AMISOM ee ku sugan Dobley ay dawladda federaalku ka leedahay dana siyaasadeed isla markaana ay doonayso in ay qayb ahaan ku qabsato awoodda ciidanka AMISOM ee jooga deegaanada Jubbaland
inkastoo ciidanka Kenya lagu eedeeyay inay tacadiyo dagaal iyo gabood fallo toos ka geysteen qaybo kamid ah gobolada Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Gado, haddana waxa ay taageero ka haystaan maamulka Jubbaland. xiriirka Jubbaland iyo Kenya ayaa ah mid aad u sareeya tan iyo intii uu Axmed Madoobe ka noqday madaxweynaha maamulka Jubbaland oo uu yahay hogaamiyaha kaliya ee uu maamulkaasi yeeshay ilaa aas-aaskiisii. waxay dowladda Kenya kor ka ilaashataa danaha ay ka leedahay deegaanada Jubbaland iyada oo diiday dhowr jeer hore isbedel siyaasadeed oo deegaanadaasi ka dhici lahaa si in xilka laga qaado Axmed Madoobe oo lagu bedelo shakhsi kale oo qunyar socda. taliyihii hore ee qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Sadiq John iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa galay heshiis culus oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya oo ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. General Sadiq John oo horaantii toddobaadkan ka degay isagoo wata gaadiid dagaal magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayay socdaalkiisa halkaasi ka soo baxayeen warar kala gedisan. waxaase Qorqor oo maalmo kadib dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb uu kulan gaar ah la yeeshay taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir General Sadiq John oo xilka laga qaaday kadib markii uu si cad u sheegay in uu diiday muddo kororsigii fashilmay ee loo sameeyay dowladda uu madaxweyne Farmaajo hogaaminayo. Sadiq John oo ay xigto dhow yihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayay heshiis ku gaareen qaabka loo sugayo amniga doorashada kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. waxa uu doonayaa madaxweynaha Galmudug in awoodda ugu sareysa ee xubnaha ka soo galaya baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal deegaanada Galmudug uu isagu yeesho. Qorqor ayaa doonaya in doorashadan ay noqoto mid uu isagu ka dhaxelo saaxiibo siyaasadeed oo cidda uu wato oo kaliya ay xildhibaan noqdaan. wararku waxay intaasi ku darayaan in waxyaabaha ay ku heshiiyeen Qorqor iyo Sadiq John oo ku dhawaad 100 askari iyo gaadiidka dagaalka la galay magaalada Dhuusamareeb ay kamid tahay in la boobo kuraasta qaar ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaan laga dhigo shakhsiyaad uu Qorqor si gaar ah u wato. warar soo baxaya ayaa sidoo kale sheegaya in laga yaabo in xitaa senator laga dhigo General Sadiq John oo uu ka mid noqdo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadibna uu isku sharaxo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare oo iminka uu ku fadhiyo Abshir Buqaari. in booska Abshir Buqaari lagu bedelo Sadiq John waxay u baahan tahay juhdi iyo dagaal adag oo laga yaabo in uu Qorqor gacan ka geysto maadaama uu ballan qaaday General Sadiq John oo Dhuusamareeb ku sugan inuu Qorqor ka caawin doono sidii awood ciidan loogu adeegsan lahaa soo saaritaanka xubno uu kuraas xildhibaannimo u ballan qaaday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo deegaanka dib ugu soo laabtay kadib safarro uu ku kala maray dhowr dal. madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sanadkan la sheegay in uu haysto awood dheeri ah maadaama kuraasta xubnaha golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee deegaanadiisa yaala ay yihiin kuwa ugu xamaasada badan guud ahaan xubnaha ka mid noqonaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee lagu soo dooranayo dalka marka laga eego shakhsiyaadka ku tartamaya oo isugu jira mucaarad iyo muxaafid. inkastoo aan la sheegin in wali heshiiska Qorqor iyo Sadiq John wax ka og yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo aanay isku fiicnayn Sadiq John balse ay saaxiibo dhow yihiin Qorqor ayaa haddana waxa ay wararku sheegayaan in generaalku uu durba guda galay hawshiisa la xiriidha sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb oo dhowr jeer oo hore ay al-shabaab ku soo qaadeen weerar madaafiic loo adeegsaday xiliyo ay shirar looga hadlayay masiirka iyo ayaha Soomaaliya ka socdeen magaaladaasi. Sadiq John ayaa khibrad u leh sugidda amniga deegaanada Galmudug maadaama uu horay u soo noqday taliyihii ciidanka niisa qaybtooda Galmudug. wuxuu generaalku iminka diyaarinayaa ciidamo ku dhow 1000 askari oo lagu fidin doono gudaha caasimadda iyo deegaanada ku teedsan si ay uga hortagaan in al-shabaab ay weerar ku soo qaadaan caasimadda Galmudug oo ay ku soo fool leeyihiin wufuud caalamiya. ujeedada ugu weyn ee Qorqor iyo Sadiq John ay heshiiska u galeen ayaa lagu sheegay soo saaritaanka tiro ku dhow 50 ruux oo ka mid noqonaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo intooda badan lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halka qaybta kalena ay doorashadoodu ka dhacaysa gaalkacyo. walow wararka soo baxaya maalmihii ugu dambeeyay ay sheegayaan in xubno uu Qorqor ka mid yahay ay u ololeynayaan in laga laabto heshiiskii hore oo deegaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo koobo dowlad goboleedkiiba hal xarun.
ujeedooyinka uu qoorqoor u doorbidayo in gaalkacyo laga soo wareejiyo xubnaha kuraasta golaha shacabka oo 11 xildhibaan oo kamid ah halkaasi lagu dooranaya ayaa lagu sheegay inay tahay in uu awood u adeegsado xubnaha lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb oo uu guud ahaantoodaba doonayo qoorqoor inay noqdaan shakhsiyaad isaga ku xiran oo uu dhaqaale ka qaatay heshiiska taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor ayaa ku soo aadaya iyada oo loolan iyo xusul duub culus loogu jiro doorashada Soomaaliya ee 2021 oo ay kursi walba oo xildhibaannimo u sharaxan yihiin tiro ka badan 5 ruux oo mid walba uu dhaqaale fara badan ku bixinayo sidii uu kursigaasi u hanan lahaa balse madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa la sheegay in awoodda soo saarista xildhibaanada ay intooda badan gacantooda ku jirto maadaama aan la filan karin doorasho cadaalad ah balse waxa kaliya ee looga bartay doorashooyinka Soomaaliya ay tahay in la isku adeegsado awood ciidan iyo dhaqaale lagu harqiyo ergooyinka wax dooranaya isbahaysi gaar ah oo ay dhawaan sameysteen xisbiyada mucaaradka Somaliland ee u ciidiyo wadani ayaa burburay kadib markii uu xisbiga u ciid ka carooday qaabkii loo wajahay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Berbera oo uu maayarnimada Berbera hantay xisbiga hay'adda Somaliland ee kulmiye labada xisbi mucaarad ee u ciidiyo wadani ayaa ku heshiiyay markii hore in maayarka magaalada Berbera laga dhigo Maxamed Dable oo ka socday xisbiga u ciid balse 3 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga wadani ayaa taageeray maayarkii hore Berbera cidin oo sidaasi mar kale kursiga ugu soo laabtay arintaasi waxa ka carooday gudoomiyaha xisbiga u ciid ee Somaliland Engineer Faisal Cali Waraabe oo sheegay in uu ka baxay heshiiskii uu hore ula galay xisbiga wadani oo isaguna doonaya in uu hanto maayarka Hargeysa iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada labada xisbi mucaarada ayaa saluuga ka yimid dhinaca xisbiga u ciid kadib waxay yeesheen kulan degdeg ah oo aan loo kala kicin oo ay kaga hadlayaan khilaafka soo kala dhex labada xisbi waxaana xubnaha ka socday xisbiga u ciid ay eed huwiyeen xisbiga wadani oo ay sheegeen inuu ka baxay heshiiskii lala galay sida darteedna aanu wax heshiis sii jiri karin oo loo baahan yahay in la kala danaysto sidoo kale burburka isbahaysiga mucaaradku waxa uu sii xoogaystay kadib markii maayarka magaalada Boorama uu isku dayay inuu qaato xisbiga wadani iyadoo oo lagu balansanaa in xisbiga u ciid uu helo maayarnimada Boorama khilaafkaasi waxa uu sababay in xukuumaddu ay ka faa'iideysato isla markaana ay baajiso kulan lagu dooranayay maayarka iyo maayar ku-xigeenka Boorama madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa safar ugu baxay magaalada Boorama si uu u kala furfuro isbahaysiga labada xisbi mucaarad ee u ciidiyo wadani isla markaana xisbiga hay'adda Somaliland ee kulmiye uu u hanto maayarnimada magaalada Boorama maadaama uu horay u soo hantay magaalada Berbera labada xisbi ayaa iminka waxa ay isku dayayaan inay badbaadiyaan inta ka hadhay isbahaysigooda oo aan lagu guul dareysan sidii looga itaal roonaan lahaa xisbiga hay'adda Somaliland ee kulmiye oo ay aqlabiyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka kaga guuleysteen kolka hore labada xisbi mucaarad ee u ciidiyo wadani balse isbahaysigooda oo qaldamay iyo heshiisyadii qaar ee horay loo galay oo laga baxay ay sababeen inay iminka kala shakiyaan oo ay kala furfurtaan xukuumadda Somaliland ayaa dhaqaale fara badan waxa ay ku bixinaysaa sidii loo kala furfuri lahaa xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Boorama ee ka socda labada xisbi mucaarad ee u ciid iyo wadani waxaana la sheegay in xildhibaankiiba lagu gorgorinayo adduun lacageed oo gaaraya 45,000 oo doolarka Mareykanka si ay u doortaan shakhsiga ka socda xisbiga hay'adda Somaliland ee kulmiye xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee SFA ayaa waxa uu shaqadii ka eriyay tababarihii xulka qaranka Soomaaliyeed Cabdiladiif Saalif oo u dhashay dalka Morocco kadib markii uu si xun u aflagaadeeyay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed oo tababar ku qaadanaya wadanka Djibouti qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Cabdiladiif oo haysta dhalashada wadanka Belgiumka la eriyay 3 toddobaad kadib markii xilka loo dhiibay wuxuuna isku diyaarinayay markaa shaqada laga erinayay kulan isreebreeb ah oo ka tirsan koobka FIFA ee Carabta oo ay qadar martigelinayso
ciyaartoyda xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa si weyn waxa ay kaga gilgisheen erayada xanafta leh ee uu isticmaalay macallinkooda ajnabiga ah oo ciyaartoyda si xun u bahdilay xilliyada uu tababarka siinay arinta oo keentay in ciyaartoydu ay ka baxaan xirada tababarka isla markaana ay dalbadaan in macallinka laga bedelo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa inta kadib qaaday talaabo uu ku eriyeeyo macallinkii xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayrinta macallinka xulka kubadda cagta Soomaaliya waxay sidoo kale ku soo aaday iyada oo ciyaar saaxiibtinimo oo ay ciyaareen Soomaaliya iyo Djibouti ay hal iyo eber guushu ku raacday xulka Djibouti isla markaana ay guul darro dhadhamiyeen xulka Soomaaliya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa laga sugayaa in uu diyaariyo macallin cusub si ay ciyaartoydu tababarkooda u sii wataan waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV